بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، أن درسي وحكو سيسي هاي كنا فعلا وفق مسلم كاهين النغضة وفو احتره وحاو قفو قبنا إياه waxay ku xidhnaan doontaa mas-uuliyaddiisa iyo inta uu awoodo. nabiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu tilmaamayaa almu'minu ya'laf wa yu'laf walaa khayra fi man laa ya'laf walaa yu'laf wa khayru nnaasi anfacuhum linnaas. xadiidkaasi sheekh al-Albani xasan ku tilmaamay wuxuu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam qofka mu'minka ahi waa mid lagu soo hirto, yani dadku ay ku soo talagalaan, ama waa mid dadka soo duma soo dhaweeya isna la soo dhaweeyo. dadka badhba haddaad aragta laga weecdaa sharkiisa, dadka badhna waa lagu soo hirtaa meeshu joogo. qofka mu'minka ah nabigu wuxuu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam inuu yahay qofkaasi lagu soo hirto. waxaanu sheegay qofka dadka sharkiisa iyo dhibtiisa dadku ay uga cararaan inaanu khayr lahayn. dabeetana nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam wa khayru nnaasi anfacuhum linnaas. dadka waxaa u khayr badan ka u nafciga badan ka u waxtar badan. dadka waxaa u khayr badan ka u waxtar badan. nabiga calayhi salaatu wasalaam baa mar kale isagoo jooga waxaa la keenay la sheegay nin dibqallooc qaniinay. markii dibqalloocu qaniinay ayaa nin yimo wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo annaga qoladayadu waxbaanu tufnaaye, dadkan dibqallooca wax lagu tufaanu naqaanaa ku akrinaaye ma ku akhriyaa? bal soo bandhig buu yidhi, waxaanad akhridaan muxuu yahay? wixii buu sheegay. dabeetana wuxuu nabigu yidhi ba'si kuma jiro tanaad sheegtay, ee man istataaca minkum an yanfaca akhaa falyafcal. ciddii awoodda walaalkii inuu wax taro ha yeela buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, ha taro. xadiidka saddexaad aan tilmaamaynaa wuxuu yahay nabiga calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimi oo wuxuu ku yidhi yaa rasuula allahi ayu nnaasi axabu ila allah wa ayu alacmaali axabu ila allah. dadka yaa alla u jecel yahay, acmaashaase maxaa ilaahay u jecel yahay? nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkanu xasan ligayri uu sheekh al-Albani ku sheegayo wuxuu nabigu yidhi axabu nnaasi ila allahi anfacuhum linnaas. dadka ilaahay wuxuu ugu jecel yahay kuwa dadka ugu waxtar badan. acmaashana waxa loogu jecel yahay buu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam sururun tadkhiluha calaa muslim, qof muslima aad farxad geliso ka farxisid, takshif canhu kurba, dhib haysato aad ka faydid, aw taqdi canhu daynan, ama dayn lagu leeyo aad ka bixisid, aw tatruda canhu juucan, ama gaajo aad ka quudisid. wala an amshiya maca akhin fii xaajatin axabu ilaya min an actakifa fii hada lmasjidi shahra. nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam inaan qof muslima si aan baahidiisa ula gudo raaco ayaan ka jecelahay masaajidkayga kan waa masjidu madiina inaan bil ku ictikaafo. waxaan ka doorbidayaa buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam qof muslima baahidiisa inaan gudo. waman kadama qaydahu walow shaa an yumdiyahu amdaa mala allahu qalbahu yowma alqiyaamati rida. qofka cadhadiisa qarsada
isagoo awoodi kara inuu guto guto kaana ilaahay qalbigiisa maalinta qiyaame raalli ahaanshiyu ka buuxiya qofka walaalkii raaca ee xaajadiisa ilaa intuu uga gudayo raaca isagana maalinta qiyaame ee aanay bini aadamku sugmi karaynin baa ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadiisa suga saddexdan xadiis aan akhriyey alfaadooda aan idin sharxay waxay wadaagaanoo sheegayaan qofka muslimkii inuu qof waxtara noqdo waxay sheegayaan acmaasha alle u jecel yahay inay tahay dadka kuwa ilaahay ugu jecel yahay inuu yahay dadka ka ugu nafci badan nafcigaynu ka warramaynaa ama nafci adduunye ha noqdo ama nafci aakhira ha noqdo bini aadamka waxa ugu nafci badan ambiyadii rususha waayo ilaahay baa wuxuu soo dhibay waxay aadanaha ku badbaadin lahaayeen adduun iyo aakhiraba oo markastoo bini aadamku uu qalloocdo oo jidka saxda uu ka lumo waxaa la soo dirayay rasuul ama nebi kaasoo loogu talagalay dadka inuu saxo oo noloshooda adduunyo wixii ka qaldamay inuu u toosiyo noloshooda aakhira wixii ka qalloocdayna inuu u toosiyo idan nafciga qofka muslimkaa laga rabo inuu yeeshaa waa nafci adduunyo iyo nafci aakhiro wixii uu tari karaba nafci aakhira u weyn oo ilaahay markuu dhaartay wuxuu yidhi walcasri ina alinsaana lafii khusrin ila aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat watawaasaw bilxaqi watawaasaw biالصabr ilaahay intuu dhaartayba wuxuu ku dhaartay bini aadamku inuu khasaare ku sugan yihi waxaa ka soo reebay cidda aan khasaaraynini inay tahay dadka laga hela iimaan iyo camal saalixa iyo xaq oo ay isfaraan iyo wixii dhib xaqa ka soo gaadha faritaankiisa oo ay ku sabraan cidda caynkaa samaysaa waa cidda khasaaraha ka badbaaday idan dadka waxa u anfac badan leh khasaaraha la hubo ciddii bini aadamka ka badbaadisa خسارة له هو وخسارها إلهي وكل دارته والعصر إن الإنسان لفي خسر إلهي بكل دارته سبحانه وتعالى هذا وحل لنا هاي dadku haddii qof waliba shaqada inta ku beegan uu qabto noloshu waa wax fudud oo la habayn karo haddii dadka inta ugu badan inta iska fadhiistaan dad gaara la yidhaahdo waxa qabtaan ummadaasi ma horumarto مثلا النبي محمد مركو جوغي عليه الصلاة والسلام صحاب الدين الشيء مية اسكفر ديانا يدهدين دين نبي ما ماشي جوغا مايا إيانا ويسي شيغيين سيدا وغير بين دمان تود شقا هيين دمان تود شقا داي قبتين مثلا أبي بكر عشرة المباشرين رجعوا وين الرقم إذا وحا كاني أبي بكر بس إسلاميين ونبقى كان عليه الصلاة والسلام نبقى نوصيه هرماني صحابة النوم ولبا الشقادة انتو قرن يمو غبطة من دقال كقيب قاله من هقامية دقال نغل من أول كتبت حديث كواركتين عن خالد بن الوليد سمى ميدان مغل حكو عام بها خالد الحديث ورين يما يبغى شيء عن خالد رضي الله عنه ولا ليه لقى ما يابين دركته هذا عند المسلمين ورجل معروفة عند المسلمين داية تاريخنا ما أنت بني آدم ككلية استراتيجية عساكرت خطة كيسيبال غوريغا وحكم ده وحي ومدة وقبن كريه وغبطي كوي علم قبرتي وحي ومدة وقبن كريه بيقبتي كوي تلقرني وحي ومدة مركا قف ولما مركا وكنت تلقى وحقبته ويقول يسته حديثة مثلا دين تفافين هذا تلاهدان أو هبل أو هبل بمسؤول كأدي دين ضدك أنت كارنا ويسوع يعني دين فافي ما يسوع أو هبل أنتو قارية ضدك مسلمين تسوي إسلامية مركو صدح عشان النبي قال لك شو جنبه بحي دبتنا سوى قبائل دم وضع سوي إسلامي وكيني ضدك سيم كشوجا أفرتن صلاة مسلمة هيد ولي كانوا قف مات كيني أفرتن صلاة مسلمة هيد وهي أدوين حلكوا بكساري بعد رميسنين النبي عليه الصلاة والسلام مركب وقت المامية ضدك وحى خير بدن ضدك النفع بدن له واحترسن
waxtarkaasi wax kasta oo bini aadamka la taraa waa waxtar xataa xayawaanka waxa la taro xataa xayawaanka xadiista waa ku aragteen qof dumaroo la yidhi ay waraabisay baa ilaahay ugu dambi dhaaf ay bay wax tartay dabeetana appreciation waa la qiray waxtarkeedii fashakara allahu lahaa baa layidhi ilaahay baa uga mahadnaqay eygay waraabisay nebi yuusuf baan qisadiisa markaa dhowr shay ka tilmaamaya maadaama waqtigu koo kooban yahay nebi yuusuf iyadoo la dulmiyey oo dembi aanu gelin lagu qaaday iyadoo la og yahay inaanu dambaabin uma badaa lahum min bacd ilaahay wuxuu tilmaamayaa markay u caddaatay inaanu waxba samaynin bay xukumeen way xabsiga dhigeen muu odhanin nimanka ay xidhay waa gaalo xabsigoodii baa ku jira nimankaa wax damboona maraya naga dhexeeya ma jiraan إلهي وحليه سبحانه وتعالى ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين لبويلو كم إذا دتك حبسي غلق علي أيا أيمي ريا أي كسر رياضين بيلي النوفصر riyada waa la fasira waa cilmi la barto waana dhici kartaa riyadu sidii aad ugu riyootay practically inay iyadiiba noqoto aan ta'wiil u baahnayn waa dhici kartaa inay mid ta'wiil u baahan tahay waa dhici kartaa in shaydaan iyo naftu kugu cayaareen oo waxaad ku riyootay baanay wax qiimo la ahayn si kastaba ha ahaatee nebi yuusuf riyay u keeneen riyadaa noo fasir bay yidhaahdeen maxay raaciyeen innaa naraaka min almuxsiniin isagoo xabsi ku jira ayaa waxaa la leeyahay waxaanu kuu aragnaa qof wax tara oo ixsaan sameeya inaad tahay macnaheedu waxa weeyaan xabsiga gudihiisiibuu wuxuu ku caanbaxay qof muxsina oo dadka wax taraya wuxuu tijaabiyey inuu iyagana wax taro laakiin wuxuu uga bilaabay waxtarka weyn buu uga bilaabo marka hore wuxuu sheegay ninkuu yahay inuu aabbayaal iyo awowyaal nebiyaa ku abtirsado dad tawxiidka rumaysan inuu yahay dad gaala ah inuu ka yimi dabeetana intaanu riyadii fasirin wuxuu u sheegay wixii ugu anfac badnaayee dadkani u baahnaayeen yaa saaxibaya sijn aarbaabun mutafariquuna khayruna min illaahi lwaaxid warma rabbiyo tiro badan baa faa'iido badan khayr leh mise ilaah keliya in la caabudo maa tacbuduuna ilaa asmaa'an samaytumuuha antum wa aabaa'ukum wuxuu u sheegay markaasi gaalnimadu inay xun tahay ilaahay keligii inay rumeeyaan taasina inay tahay diinta quman kow waxtarkii markaa wuxuu uga bilaabay waxtar diineed oo aakhiradoodii adduunkooda badbaadinaya mar labaadna wixii ay ka dalbadeen buu u sharxay kii yidhi khamri baan walaaqayayna oo wuxuu ku yidhi waad bixi doontaa adigu khamrigaasaad walaaqi doontaa boqorkaad u shaqayn doontaa kii yidhi anigoo dusha kimisku sida khubus anigoo sida oo shimbira ka cunayaan ayaan ku riyoodayna wuxuu yidhi adiga waa lagu dilayaa dabeetana waa lagu salbinayaa saasaad ku dhimanaysaa idan labada nin nebi yuusuf wixii ay rabeen wuu u sheegay wuxuu kaloo ugu daray wax uga anfac badan waxay rabeen oo ah inay salaamaan nebi yuusuf mar labaad iyo mar saddexaad baan ku noqonaynaa qisadiisa waayo waa meelun baan rabaa inaan taataabto waxa u yimi walaaladii oo kuwii godka ku riday ahaa muu odhanin haddaanana fursad haystaaye haweenanana god kale ku ridaa isagoo yar bay qaadeen god bay ku rideen waa kaga tageen dabeetana wixii iyo mashkilada uu soo maray dayaga u sabab ahaa godkii baa laga qaatay sidii xoolaha la kala iibsaday nin boqora baa iibsaday gurigii boqortooyadu ku noolaa islaantii guriga joogtay baa hunguraysay waa diiday kufsi oo istidhi waa cararay waa marada ka daldallaacisay albaabkaa lagula kulmay dabeetana isagii baa haddana la xidhan iyadoo laga markhaati kacay inaanu isagu waxba dhibin ayaa isagii la xidhay kuwii waxaasoo dhiba u sababo baahan baa u yimi maxay leeyihin قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا
فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. ويوي مادين راشين بوسيي هدنا العقد أي ستين وقدري وصار نقضي أخيرا مركي ولالك وتكلا حريرا أي وحي لين نكاغن تلاد هيا ويل كان يري أبو دا أبو لي أمت كايو كبدل إنا نراك من المحسنين. أريق بلو جيدا مركا أريق لبادي إننا حبسك الله قال يكوي رهدين أيو كليهين يوسف ولا الذي وحي لين إنا نراك وحنكو أرقنا من المحسنين كو صرف لنا كمطاح جوانك أي قد كل ردين وهدنا ولبا مرضى مرة وكبين أبورتين ومركو ويل ككرهبي وحي إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل سقوا مدحوينا بغر وماشي تاقن بي وحي لين إن يسرق هدو يكاري وحضي midka horeeyay walaala Allah ahaba jiro tuuga way isagan hortaagan ay leeyin mid hore tuuga ba jiray waxa soo dhan uu qabanin ee wax uu taray saawgeed ba walaaladii dhibta u geystay waxay leeyin inna naraka min almuhsinin ku xabsiga la galay waxay leeyin inna naraka min almuhsinin inta waxa sii dheer nabi yusuf isagoo xabsiga ku jira oo wax dambiyana aan galin ayaa boqorkii riyooday boqorkii markuu riyooday ayuu yiri riyada ha la ifasiro riyadii boqorka dadkii way fasiri garan waayeen adqaat wa ahlam bay ku tilmaameen tan fasirkeeda garan mayna bay dhaadeen kii uu yiri barigii hore waad badbaadaysaa iyo boqorka uu shaqeeyaa xasuustay markii hore war boqorka arrinkayga uu sheegay waxba uu sheegay waa iska ilaabay laakiin imika markii riyo la soo qaaday buu xasuustay dabeetana wuxuu yiri hal ay diraaniga ana Yusuf tagaya ninba halkeer jooga xabsiga oo riyada si fiican u fasirayay aniga hal ay diro ninkii baa yimi wuxuu leeyahay Yusuf ayuha as-siddiq aftina fi sab'i baqaratin siman yakuluhunna sab'un hijaf wa sab'i sunbulatin khudr wa ukhra yabisatin la'alli arji'u ila an-nas la'allahum ya'lamun waxaanu aragnay todoba boqorkii wuxuu ku riyooday baa la yiri 7 saac oo naxnaxsan oo 7 liitar cunayaan iyo 7 saabuul oo cagaaran iyo 7 kale oo engegan riyada fasir buu yiri waxa laga yaabaa dadkii inaan ku noqdo oo ay wax gartaan haddii lagu xidho oo dawlad gaaleed ku xidho oo lagu yiraahdo ra'iisul wasaare ama madaxweynaha baa riyooday oo riyada la rabaa in la fasiro oo aad waliba ogtay riyada inay ka warramayso dhaqaalaha wadankan iyo sida la yeelayo had yeeli lahayd adana wagaalaha baratay naga dah nabi yusuf mu oranin warnimo kan gaaleed ha iska badha ee riyadii buu fasiray mu oranin horta xabsiga iga sii daaya haddaan rabtaan inaan waxiidintaa mu gorgortamin xabsiga haddaan ka baxo umaan waxidiin samaynaya ma ku oranin wuxuu taagan yahay anfacu naas inuu noqdo khayru naas anfacuhum linnaas wuxuu u sheegay wuxuu ku yidhi 7 sano oo barwaaqo idin soo mari doona 7 barwaaqo wixii aad goosataan saabulkiisa u daaya midhaha inta cunaysaan mooyaane inta kale sideeda meel ku dhiga waxa ku xigi doona buu leeyahay 7 sanadood oo kale abaar ah oo 7 sanadood ee abaarta waxa cuntaan 7 hore wixii ay beereyseen baa la cunayaa sanad kale ku xigi doona oo maxay barwaaqo oo nimankan laba 7 mid uu sheegay sanad wada xabo ka fiican يهدي تضرب برواقة وتضرب كحجة أبار كحجة وين نقطة برواقة دي كلام حرام لا سديد أبارة دي نصابرس ما دام يولد تضرب أبارة ومعروف السنة كحجة ما كانوا خلاف هذه السبعة وياي نبي يوسف وحوش شاغي شن يطبن سنضاد نقالها ودن كسيدي الله معمول لها شن يطبن سنضاد المستقبل كيسا صعدة هي نقالها ودن كان مصر لا يراهدو sidii loo maamuli lahaa buu sharxay waxaan u sheegay dhibaatooyinka soo socda waxa lagaga baxayaa inay tahay 7 sanadood ee hore kaydka ugu badan in la dhigto in yar oo la cuno mooyaane 7 abaarteed dambana
kaydkii la dhigtay in lagaga baxo dabeetana sanad baa ku xigi doona waxay tilmaamaysaa qofka muslimka inuu yahay qof naafica aynamaa xal wartaxal meel kasta uu dego ama se uu tago qofka mu'minka inuu yahay qof wax tara abubakar ayaa mushrikiintii markii ay dhibeen muslimiinta ayuu is yidhi iska hijrood ardal xabasha iyo meeluu kaco ka bax makuu ka baxa barkil khamaad meel la yidhaahdo markuu marayay ayaa waxaa la kulmay nin la yidhaahdo ibnu daghina qabiil qaarra la yidhaahdo buu oday caaqil suldaan uu u yihi waa qabiil gaaleed dabeetana abibakar buu wuxuu ku yidhi ayna turiid ya abibakar xagaad ku socotaa abibakar baa wuxuu yidhi akhrajanii qawmi min hadihi albalda faana uriidu an asiixa fi lardi faacbuda rabbi tolkay baa isoo saaray oo maka iga soo saaray waxaan rabaa an asiixa fi lard siyaaxada waxaa la yidhaahdaa culammadii hore waxay ku tilmaamaan inay tahay qof intuu iska baxay inuu ilaahay unu cibaadaysto meel gaara baan ku soconin iska dhaqaaqunoo meeshaad aragtaba ilaahay un ku caabudo meeshaas kaga tag abubakar wuxuu leeyahay maka waan iskaga imi waxaanan rabaa inaan iska socdo uu ilaahay dhulkiisa maro oo aan ilaahay caabudo waayo tolkay baa isoo saaray u fiirso ibnu daghina waa nin gaaleed oo oday qabiil gaaleed ka taliya ah wuxuu ku yidhi ina miluk laa yakhruj walaa yukhraj adigoo kale buu yidhi abubakarow nin tolkii ka tagana ma tihid nin la saarana ma tihid adna kuuma cuntato inaad iska tagto nin la saarana ma tihid waayo abubakar wuxuu ku leeyahay markaa fainaka tuksibu almacduuma watasilu alraxima wataxmilu alkalla wataqri aldayfa watuciinu calaa nawaa'ib alxaq abubakarow buu leeyahay adigu waxaa tahay nin dadka faramadhane aan waxba haysanin wax tara waxaad ahay buu leeyahay nin riximka iyo qaraabada iyo tolka xidid iyo xigaalba xidhiidhiya waxaad ahayd buu leeyahay qofka culus ee ama dayn ama mag ama wax loo haysto qof ka roga culayska waxaad ahayd buu leeyahay martida qof soora waxaad ahayd qof ugu gargaara dadka nawaa'ib alxaq abubakar markaa wuxuu ku sifeynaya qof bini aadam oo wax tari wixii uu qaban jiro o dhan inuu qabto waana nin mushrika ninkaasaa ku sheegaya yani abubakar wuxuu ahaa dadka ugu anfaca badan leh ee bulshada keeda baahan keeda liita keeda culus keeda musaafirka ku walba wax tara saa awgeed buu leeyahay ninka qiimaha leh ee bini aadamka sidaa wuxu tara nin la saara maaha aniga ayaa ii magan tahay buu yidhi abubakar wuu soo celiyey makuu keenay isagoo inamadiisiina wata quraysh buu isugu yeedhay wuxuu yidhi qurayshay dhegaysta abubakar waa magantay ciddii abubakar taabataanay u taabtay carabtuna magantooda aad bay isugu ixtiraami jireen weliba markuu ninku yahay nin odayo reer ka taliya abubakar siibuu maka ku yimi inkastoo markuu waqti joogay gurigiisa hortiisu masaajid yar ka samaystay nin markuu tukado aad u ilmeeya buu ahaa dabeetana quraysh baa ka ashtakoto waxay yidhaahdeen intay ninkii u tageen abubakar dumarka iyo carruurta iyo dadka buu naga fitnaynaya halkaas buu maanta dhan ku ooya qur-aan akhrinaya dee dadku ninkan weyn ee ooya waa raacayaane ee gurigiisa ha gala bay yidhaahdeen hadduu doonayo inuu ku jiro magangelyadaada gurigiisa ha galo wuxuu doonaya ha ku sameeyo marka wuu u yimi wuxuu ku yidhi dee abubakar waa lagaa cabanayaa anigana waxaynu isku ogeyn inaad magantay tahay dee tolka inaad dhibtano kuwa gurigaaga iska gal abubakar wuxuu yidhi ama aan kuu soo celiyo magantaadii dabeetana wuxuu yidhi abubakar waradna magannimadaada iska qaado anugu mabda'iga waan wadanayaa adiguna free baa tahay maanta laga bilaabo xel kuma saara waxaan uga dan leeyahay xadiidku waa dheer yahay laakiin anigu meeshan u jeedaa waa maxay nin mushrikaba abubakar wuxuu uga markhaati kacaya caynkan حتى النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام انت المعجزات كم بدني كم مقنن دتك يوجه الرئي السلام محي كرمية مثلا دتك يوجه الرئي السلام وحين وراك خديجة كم ده
markuu nabigu u yimi calayhi salaatu wasalaam zamiluuni zamiluuni isagoo leh iddada iddada oo cabsanaya ayaa waxay tidhi wallaahi laa yukhzika allahu abada ilaahay baan ku dhaartee alle weligaa ku hoojin maayo waayo qof waxtaraad ahayd bay leedahay intan abibakar lagu yidhi ilaag bay ku tidhi khadiijo waxay leedahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo le waan cabsanayaaba waxay ku leedahay ilaahay baan ku dhaartay rabbi ku hoojin maayo sababtu waxay tahay mid kaa waxaysan wax siiya tii qofkii qaraabo ah xidhiidhiya qofkii culays haysta culayska ka roga qofkii marti soora yacni bulshada qof wax ku tarabaad ahayd bay leedahay saa daraaddeed ma suurtagal aha in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku hoojiyo taasi waxay sheegaysaa muslimiintii hore noocay ahaayeen ambiyadii nebiyullaahi moxamed nooc uu ahaa abibakar wuxuu ahaa maxaa dadku ku rumeeyeen maxay dadku u raaceen maxaa looga dambeeyey dad waxtara bay ahaayeen bulshada dhexdeeda dad waxtar ku ah waxtarku mid aakhira ha noqdo ood qofka naarta ka badbaadso dee waa waxtarka ugu weyn nabiga calayhi salaatu wasalaam dadkii u shaqeeyey waxaa ka mid ahaa wiil yaroo yahuudiya wuxuu ka mid ahaa shaqaalihii nabiga calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuu xanuunsaday waxaa loo soo sheegay nebiga wiilkii inuu buko oo guriga aabihii jiifo dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu soo baxay wiilkiibuu soo booqday dabeetana wiilkiibuu la hadlay intuu madaxiisa fadhiistay buu wuxuu ku yidhi war yaa wiilow aslim war iska islaam wiilkii baa aabbihii eegay markaa aabbihii baa wuxuu ku yidhi markaa atic abalqaasim sala allahu calayhi wasalam yeel waxa uu kuu sheegaya abalqaasim waa nabiga calayhi salaatu wasalaam kunyadiisa dabeetana wiilkii baa islaamay markaasuu nebigu wuxuu leeyahay alxamdu lilaahi aladii anqadahu min annaar waxaan mahad u celinayaa allihii ka badbaadiyey wiilka ka naarta ka badbaadiyey aanu gaalnimo ku dhimanin yani nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu gurigiisii uga yimi ee uu gurigaa yahuudiga u tegey ilmahaa yare xanuunsanaya ama wiilkaa xanuunsanaya inuu naar ka badbaadiyo aanu ku dhimanin gaalnimada inaanu ku dhimanin waxaa leenahay dadka in wax la taro oo waliba dadku waxtar waxay ugu baahi badan yihiin markay baahan yihiin ama aakhiradooda ha noqoto ama adduunkooda ha noqote islaamnimada macnaheedu waxa weeyaan waa qof bini aadamkoo dhan nicmada la jeceliyo wanaagga khayr waxaa dhacay ilaahay wuxuu qur-aanka ka warramaya qiso suuratu yaasiin qisada ku jirta mu'min suuratu yaasiin nin ayaa ilaahay ka warramay ninkaa ilaahay magaciisa inooma sheegin magaalo uu deganaa lama sheegin wax taytalo watay lama sheegin ilaahay wuxuu ku tilmaamaya wajaa min aqsa almadiinati rajulun yasca magaalada halka u dambaysa nin ordaya ka yimi ninkan magaaladii uu joogay saddex rasuul baa loo soo diray u fiirso qisadan saddex rasuul baa la soo diray labaa la soo diray saddex baa lagu wixiiba waa beeniyeen adigu haddaad joogto magaalo saddex rasuul loo soo diray oo saddexdaba la beeniyey maxaad yeeli lahayd inta inagu badan waxa dhahay ma nimanka rasuusha diida aniga aqbalaya soo kaama ma tirahdeen يعني مسؤولية اسمها صارت ما دام صدح رسول بالديدي الله ده ماشي صدح رسول الديدي مشقة كبرنا لكن كان إلهي قرآن كلا آخرنا يا إلى قيام الساعة قصدي سوى حلوه قري وقف اسكت دين ومسؤولية قاضي كافة اسمه أورانا صدح رسول ما ماشي شوقي وحو قرتي إن سجنا حل سارين يا وغيران إنه ضدك كوي هذا وهو يعني من كان راعي سببتك الراعي سنة وردي شبيه وحلي يا قوم اتبعوا المرسلين والرسل راعبوا لي وهو محي سببته اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون لما سببات بو راعبوا لي لما كانوا وحبيدا كمان نبان مركو هوري بني آدم كهدي يقول هدو يسيرادو نكان يدقالو كود دونيا يا كرسو كود دونيا يا وحبو أديك كاد دونيا هدا سيرادو وحلقة يبينات هراو راعين وصلين كان دنتي سوطا مركا وحلي والرسل شو مركو هراو وحبيدا كمان ربطو وامر marka labaadna muxuu ku tilmaamay wahum muhtadun wa hanuusayin raaca qisada ma sharxayo laakiin waxaan uga danleeyay inta dambe
ninkii dadkii wuxuu leeyahay rususha raaca uu tawxiidkiisii buu qirtay wuxuu leeyahay anuu nimankaasi xaq bay sheegayaan waan raacay qisada ka muuqata waa la dilay ninkii waa la dilay ilaahay baa ka warramaya markuu dhintay siduu u fakarayay markuu dhintay aakhira qabtay siduu u fakarayay baa ilaahay inoo sheegaya muxuu ka fakaraya qiila dkhuli ljanna baa ilaahay leeyahay waxaa la yidhi war jannada gal قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين تلكي ولي وناك بول الراد عينيا وحلي الله جعلان لهاي إني تلكي أقادان وحن معي لهي سياسة دمي ويقول إينها إسلاماني وحو ولي خير لا جعلي كوي سودي لي ما أورنين أديك أديل قد لهم حدا الله إلا ونار تكوا كوفا سماها يعني عقله بني آدم وانت بدنا أرسو بكفكرة وكوي وحب سمياد ونا آخر ودن لكن يقول للدلي وقدر الوجود دلي وصدح رسول بينيين وحوي حق هيدو قدر الوجود دلي هدرة أيها هدنا وحكف فكرية ورنمنكي يا ونا قال هلا وشاقة يقول الرعانة بركة واحد المام يسقفك مؤمن كينو يهي دتك قف خير كلا جعل dadka qof raba inay wanaaga qaataan khayrka la jecel haddaba qof kastoo muslima xilka saarani wuxuu yahay inaad noqoto qof bini aadamka khayrka u horseeda hadduu yahay mid adduunyo iyo hadduu yahay mid aakhiraba dunida dadku waxay ku islaaxi lahaa say nabad u heli lahaayeen kuwada ducafada saa loogu gargaari lahaa kuwada jaahilkaasaa wax loo bari lahaa kuwada aqoonyahankaasaa loo tilmaami lahaa ummaddu markuu qof waliba xilka isa saaro oo contribute gareeyo wanaaga ayay ummad jirta noqotaa ummadda marka qof waliba uu iska dhiga cadam ilmas-uuliya inaan isaga waxba saarayn qolo kalena laga suga inay wax hagaajiyaan way jabtaa waana soomaalidu say hadda u badantay dad maqan oo aynan garanayn meelay ku maqan yihiin baynu sugaynaa waddankeennii iyo dalkeennii iyo dadkeennii baynay hagaajiyaan innaguna waxaynu rumaysanay qof waliba inaan isaga mas-uuliyadi saarayn ilaahayna wuxuu inoo tilmaamaya qur-aanka ninkaa saddexda rasuul iyadoo la diiday rumaysan in mas-uuliyad saaranta xil isa saaray weliba meesha lagu diiday aan joogin ee ka yimi min aqsa almadiina magaalada halka ugu dambaysa sifadu ku yimi haddana ahayd qof mas-uuliyaddaa xambaarsan oo degdegaya ilaahay wax calaamadana uma yahay rajul wala tankiiriye rajulun baa lagu tilmaamay oo yasca nin ordaya unbuu ahaa waxaynu u baahanay markaa ayuha alaxiba dad wax tara inaynu noqono nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa daa inaad wax practical oo ummadda u qabatee haddaad tilmaamto uun nin baa nebiga u yimi sheeganaya dhib wuxuu raacana inuu u baahan yahay dabeetana riwaayadka qaarkoodna nebigaa yidhi bay le riwaayadka qaarkoodna nin kalaa yidhi mahma takun nin baa wuxuu leeyahy war hebel u tag waa laga yaabaa inaad isaga wax ka hesho nebigu waxba ma haya markaa calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya ninkan inaanu waxba tari karaynin laakiin mu odhan in waxba ku tari kari maayo iska tag ee waxaa la yidhi bal hebel u tag waxaa laga yaabaa inaad ka hesho waxaad rabtay hebelkii buu u tegey dabeetana dantiisii buu ninkii kale u fuliyey markaasaa nebiga loo sheegay nebigu wuxuu yidhi man dalla calaa khayrin falahu mithlu ajri faacili xadiidkii muslim man dalla calaa khayrin qofka dadka khayr u tilmaama ninkan waxaa loo tilmaamay waxbuu ku weydiisto waxaad tidhi waxba ma hayo laakiin waxaad ugu dartay war bal hebel sii mar waa laga yaabaa inaad ninkaa ka heli karto mujarad waa tilmaamtay aduu waxba maad bixinin tilmaamtaasi haddii ay guul keento nebigu wuxuu leeyahy man dalla calaa khayrin wanaag ciddii dadka u tilmaamta falahu mithlu ajri faacili kii sameeyey baa lamid oo kii sameeyeyna ajarkiisii uu leeyahay adiguna ajar u dhigma kaa sameeyey ajarkiisii baad leedahay idan ama nafci adduun ha noqdo ama nafci aakhira ha noqdo qofka mu'minkii waa inuu naafic noqdaa waa inaad marka hore ka fakaraysaa dadka sidaad wax u tari lahayd cali ibn abi aalib ayuu nebigu ciidan u dhiibay dagaal baa la galay khaybar meesha la yidhaahdo labadii maalmood hore waa la furan kari waayey
وأتكاد دقالكي ما نصدق حادي أيو نبو شيخ عليه الصلاة والسلام من إلهي تشعلي إلهي تشعل إنه راية اللوني بدونه علي حنوصر يا الله يا نبي قاود دعية كنت فوا بكسدي علي بلا يدعيك وقامي دقال بقليا هذا كان دقال قال لي سبحات كل الدردار من الهيد لما كويه كاب أحسن من سوماها سفي عن دقال كوقا ما هي النبي يقول كل الدردار فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. النبي يقول كل الدردار إلهي بقول دارته mid quro kamida gaalada in ilaahay ku soo hanuuniyo ayaa kaaga khayr badan galkiisa asaas yaani ina wadanka furataan oo qaniimo iyo xoolo badan heshaan oo tiraahdan gaaladiina waa leeyahay xoolana waa ka soo helay waxa ka faa'iido badan buu nabigu leeyahay mid kamida inuu diinta qaato marka asalka qofka mu'minka hatta haduu goob dagaal joogo dadka la maaha hadafkiisu dadka xoolo ka hel maaha هدف كيسو وضدين تانين يفافتو هدف كيسو وإنو ضدك النار كبدباديو قف قبنا يهدو كاسو أربع ما حتى بين لها قف دب كل قول لي يهدو كاسو أربعة وحكى لك ما تفكرتين كو واحد كيف فكر لها المحي أنا بختيسو ما يصير الله هاي وهربت كل هو كقبنا يوصي سعودية شيء وكبارنا بلي محكوسي جيران كجارسي ساعات يوقفر يعني منتالتي قفك مسلم كي نقالا معها dadkan inaad xoolo ka hesho maaha mentaalitiga qofka muslimka ma aha dadku inay dhintaan mentaalitiga qofka muslimka waxa weeyaan dadku inay diinta gaadho inay dadku badbaadaan adduunkoodana badbaadaan aakhiradoodana badbaadaan sidaa ogeed buu nabigu wuxuu leeyahay qof quro ku hanuuna kaaga khayr badan inaad gaal cascas hesho baalana markaa النبي عليه الصلاة والسلام مرة قلت الماما أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس أما خير الناس أنفعهم للناس ضدك وحا ألا وجعليك ضدك وحتر بدن أما قلت الماما ضدك وحا وخير بدن كضدك محي وقل نفعك بدن له أما النبي عليه الصلاة والسلام وحا قلت الماما مثلا إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النمل في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. إلهي سبحانه وتعالى هي ملائكتيس هي السماء واحد دقن يدولك واحد دقن حتى قرآن جدا قدك كتشرته أما كلونك بدا كتشره وحي كصلينا يعني إلهينا أن حريستي سوسينا مخلوقاتنا إلهي بي وحي ويدين يا محي إلهي ندبق وضعفه ونحرسه على معلم الناس الخير قفك ضدك خير كبره أيها الأحبة صلاة بلادي ما يبقى فيها سو كوبينا وحي نكو كوبينا نولشا وين الكونتريبيوشن كويا لطا نولشا وين قف واحترم نقطة نولشا ما هي قف ديرادا نقطة oo wuxuu cunay iyo wuxuu xoogsado tiisa ka fakarayna noqoto ma qofka muslimka dhaqanka lagu yaqaan marka waa maxay waa qof waxtara oo waxtarkiisu sida ambiyada ilaahay uu ka waramayo ilaa iyo gaalada ay gaadhayaan inaga muslimkii baaba inuu ficlaan maxaynu gaal anfacnaa muslim oo dhanka kaalaya intii kula dhulka ahayd ama kula dadka ahayd ama kula jaarka ahayd ama kula deganayd ayana ficilnu gaadhaynin إلهي وحن كبر يا سبحانه وتعالى يديتنا إلى فهم سيو إن جاي لك قمناضة ذكر قمنانة وغيرة كوا واحترس إذا النبي وشيخي عليه الصلاة والسلام إن ربنا جاي له وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.